خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. tusaalooyinka taariikhda waa barnaamij aan ku soo qaadan doono dhacdooyin muhiim ah. waxaa jiray islaamka ka hor waqtiga jaahiliga 2 nin oo ilmo adeer ahaa, 2 boqorna ahaa. waxay isku qabsadeen boqortinimada, wayna isku faaneen. runtii xagga nasabka isma dheero, waa 2 nin oo ilmo adeer ah, laakiin waxay ku faantameen tilmaamaha kale ee bulshada dhexdooda ay ku leeyihiin, sida sumcadda iyo wixii la mid ah. taas waxay keentay inay raadiyaan cid ay u gardhigtaan oo kala saarto. waxay u tageen odayaashii dhaqanka, ugaasiyadii, si ay u kala saaraan. laakiin nin kastoo ay u tagaan uu ka cudur daartay, maadaama 2 nin haddii uu kala saaro oo uu kala fadilo ay keeni karto in qoyska dhexdiisa qaarna hoos loo dhigo la yaso, qaarna kor loo qaado. ugu dambeyn waxay u tageen nin la oran jiray Harab oo howlahan caan ku ahaa. runtii nin go'aan leh ayuu ahaa, muusan ka gaabsanin, wuuna aqbalay inuu galo hawshan. laakiin shuruud buu ku xiray. shuruudaasoo ahayd inay ballan qaadaan xukunkiisa inay aqbalayaan ayna ku qancayaan. kadib way aqbaleen. wuxuu sameeyey, wuxuu yiri waan ka soo tashanayaa go'aanka iyo qaabkii aan u geli lahaa gartaan. tilaabadii koobaad uu qaaday waxay noqotay si gooni ah inuu oo la kulmo Caamir iyo Calqama. midkii koobaad buu la kulmay. wuxuu ku yiri sidaad oo la tartami kartaa ninkan oo tilmaantaas leh. tuu sheegay tilmaamo badan oo wanaagsan oo uu lahaa. aad buu isugu naxay, ma uusan filayn. wuxuuna ka codsaday inuusan ka fadilin wax walbaba ha weydiisto, xoolo iyo maal, inuusan ka fadilin ayuu ka codsaday. على الأقل haddii ay ka tagi weydo oo asaga uusan siinin fadilaada, inuu simo oo uu ka dhiga 2 nin oo siman. kadib wuxuu la kulmay ninkii kaleete, ayuu haddana si gooni ah oo la kulma. sidoo kaleetuu ku yiri, isagana falcelintiisi waxay noqotay ninkii hore oo kaleeto. aad buu isugu naxay, wuxuuna ka baqay in laga fadilo. isaguna xoolo iyo maal wixii aad doontay weydiisay ha iga fadilin ayay noqotay orahdiisi. ugu dambeyn iska baxay ku yiri anaa go'aan gaarayo. maalinkii dambe ehelkii iyo qoyskii iyo qaraabadii oo dhan baa kulmay, oo maalinkii kala saarka 2 nin hawshooda waqti dheer ay soo socotay. markii la isku imaaday, xukunkii Harab waxa uu noqday inuu yiri 2 nin way siman yihiin, dhinac walbo way ka siman yihiin xagga sharafta iyo jaaha ay ku dhex leeyihiin bulshada iyo qoyska ay ku dhex nool yihiin, way ka siman yihiin ayay jawaabti noqotay. sida ay ku qanceen, aad bayna ugu farxeen, sida ayayna arrintii ku soo gabagabowday. muddo dheer kadib, ninkii xukunka galay oo garta kala saaray 2 nin ayaa waxaa la kulmay Umar bin Khattab radiyallahu anhu. wuxuuna weydiiyey 2daas nin ee gartooda gashay ee taariikhda baal dahaba ka gashay, sidee baad macna xukunkii 2 nin yaa fadilnaa agtaada? Harab waxa uu yiri 2 nin waan ogahay mid ka fadilnaa, oo astaamaha qofka bini'aadamka ah inay kala wanaagsan yihiin way dhacdaa. laakiin wuxuu yiri ma sheegayo, maxaa yeelay arrintii maalinkaas aan ka baqayay ayaa dib u soo laaban karto. waxaa dhici karta in qoyskii hadda haddii aan sheego dib inta loo kala jabo inuu dagaal dhaco ayaa suurtagal ah. in qoyska qayb ka mid ah dib hadda loo yaso, qaybna kor loo qaado baa suurtagal. marka arrintii aan maalinkaas ka baqayay ayaa weli dhici karto, sidaa darteed sirtaan waan la dhiman karaa ayuu yiri. runtii Umar aad buu ugu farxay. waxa uuna ku yiri waad u qalantaa in aad noqoto ugaas iyo zaciim, hogaamiye reereed inaad noqoto u qalantaa. marka meeshaan u socdo waxay tahay mujtamaceena Soomaalida ah waa mujtamac qabali ah. waxaan u baahannahay ama muhiim ah in la helo odayaal sidaas oo kale mas'uuliyad u qaadi karo,
si looga badbaado dhibaatooyinka ay ka mid tahay dad isku mid ah oo isku asal ah ama isku mujtamac ah in qaybna kor loo qaado qaybna la yaso. Si looga badbaado waa inaan helno odayaal dareenkoodu iyo hogaamintoodu ay tahay sida harab. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زاد.